Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Wararka ugu waaweyn maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha Juun 2026 waxaa ka mid ah Iiraan ayaa diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska ku weerartay garoonka Kuwait International Airport ee dalka Kuwait. Sida la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku dhintay weerarkaas, qof kalena wuu ku dhaawacmay. Dhanka kale, afhayeenka golaha baarlamaanka dalkaasi Iiraan ayaa sheegay in qarnigii hanjabaadaha bilaashka ah ay dhammaadeen, wuxuuna intaa raaciyay in gardarro kastaahi ay la kulmi doonto jawaabo shalayto leh. Suuqyada saliidda ayaa qarka u saaran xiisadan darteed inay gaarto heer aan waxba laga qaban karin. Tani kaliya ma hadalba mase waa gogol dhaca ama horudhaca dagaalka, ayuu intaasi raaciyay. Ugu dambeyntii, wadaxaajoojyada u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo dalka Iiraan ayaa waxaa suurtagal ah in wax horumar laga gaaro, taasoo suurtagal ka dhigaysa in laga khafiifiyo xayiraadaha saaran dalka Iiraan iyo qiimaha saliidda oo shidaalka hoos u dhac ku yimaado, iyo suurtagalnimo sheegaysa in ay kulmi karaan labada hogaamiye waa Trump iyo Ayatollah Iiraane kadib hadal kulul oo ku dhex maray dhanka qadka telefoonka. Warkan waxaa xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha